gobolka Eastern Cape magaalada Yutnik waxaa laga soo tabinayaa dhibaato aad u ballaaran kadib markii roobab mahigaan ay halkaasi ka da'ayeen maalmo. Dhibaatadan ayaa waxay isugu jirtaa dhimasho, dhaawac iyo waliba burbur hantiyeed. Gudoomiyaha jaaliyadda Mudane Ismaaciil iyo qaar ka mid ah jaaliyadda oo warbaahinta la hadlay ayaa ummadda Soomaaliyeed waxay ka codsadeen inay u fidiyaan gargar dadkii Soomaaliyeed ay dhibaatada halkaasi ka soo gaartay. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa magaalada Yutnik oo u jirta runtii 3 kilomitir magaalada Port Elizabeth oo runtii xalay ay ka dhacday arrin musiibo markii ay ku dhufteen roobab xooggan wadooyinkii oo go'ay guryihii oo burburay iyaal fara badan oo Soomaali ah oo la soo badbaadiyay runtii meeshaas ayada waxa ka soo gaartay Soomaalida degneed khasaaro iskugu jira naf muxuu ahay dhaawacyo iyo adiga waxyaabo fara badan wax guriyihii iyo macallin dukaamadii yariiska ah ee tagshoobida xaafadaha ku dhex yaalay wax meeshii ku haray malahan dadkii waxay isku degan yihiin ilaa 5 qoys guriyihii waa cariiri marka ayada wixii cunto oo guryaha yaalay iyo firiijyadii waxa qaaday biyo waxa kale inta meesha ka jira koronto laan maadaama baalalkii korontooyinkii wixii dhulka ku dhaceen oo korontadii la jaray laga baqay inay saameyn iyo shock iyo wax ay sameeyaan marka runtii waxaan ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Eastern Cape fariin dheer iyo mid gaaban buu ugu dirayaa in gurmad degdeg loo baahan yahay ma qodno laakiin dad baa jira dhintay waxaa jira oo kale barakac fara badan oo dadkii ku yimid guryihii iyo deegaamada ay deganaayeen inay u yaraan dadka Soomaaliyeed hadda haddaan soo qaadanoo kale 19 qoys inay hadda ay guryahoodii ka barakaceen ay ka maqan yihiin 29 haddaan waan idhaahday inay ka maqan yihiin guryahoodii iyo deegaankoodii oo ay ku tirsan yihiin walaalaha kale Soomaaliyeed waa dareemi karaysaan markay baaxadda intuu leegyahay waxaa jiroo kale dad badan oo South African ahaa oo Muslim iyo dad Muslimiin aan isugu jiray aan ahaynba lahaa runtii iyaga laftooda khasaaraha soo gaaray waxaa jira dhimasho iyo waxaa jira sidoo kale dhaawac marka musiibadaas meesha ka dhacday runtii mid weyn bay ahayd waxaanu meesha u nimid haddana Somali community aan walaalaheen aan la qaybsanno dhibaatada xalay soo gaadhay maadaama xalay xilli dambe ay ahayd roobkuna uu aad u weynaa socodkuna uu aad u adkaa in la soo gurmado walaalihii dadaalay dadkii walaalaha kale ee guryaha ku xanibnaa soo badbaadiyey inaan maartay u mahadnaqno annagana aan indheheena ku soo aragno ayaan meesha u nimid oo waxaanu ka imaanay Coastin ama PE meesha aan joognana waa Yutnik marka runtii waxaanu indheheena ku soo aragnay khasaaro weyn oo maartay baaxadiisa leh gaadiid buu la tegay agabkii iyo wixii guryaha yaalo dhan buu la tegay daadku runtii waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa insha Allah taala in dadkan Soomaaliyeed waxaan deganahay gurigan ag taagantii baan deganahay xalay maxaan helay roobkii mahigaan oo dabayl iyo maxaa doofaano wata guriga deganahay aniga bulaacad fasneed waa kan gaar baa ka dhisnaa marka bulaacada soo degtay gaar ku dubay bulaacad iyo guriga wax u dhaxeeya malahayn biyan wax u dhaxeeya malahayn ana way iskaaday bas ma wanaag ciyaalkii baan Allah ari waxaan ma shar ciyaal iyo ari iyo hooyado dooq baan dooq baan ciyaalkii baan ka saaray halkan baaqiya hadda arkaysan baabuurta isku dhacayaan biyo halkaas noo qabanayeen madaxa noo gaareen ciyaalkii baan ka saaray meesha saantii oo xambaarsan ilmaha baa ku dhex dhacday biyo afadii kale biyo ku dhex jiraan aabe caaw bay leeyihiin aabe caaw meelun xalay masiibo rabaaniya ku dhiidi roobkii mihigaanka wadankii kan ku dhii jaray oo kale walaal wadanku ku dhii xalay dad iyo duunye xoolo waliya dhaaf timale derbiyaalka dadka ka dumeedi guriyada dadka ka dumeedi dadka maylka badbaadiyayna suxun iyo saxariiral ka badbaadi ilaahay badbaadiyay laakiin walaha niis gurmadi Soomaali xalay niis gurmadi xalay Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha TV-ga Shabeelle Johannesburg.